1980 Ireland waxaa loo bixiyay ninka xanuunsan ee Yurub waa heerka dhaqaale xumo ee wadankaas uu gaaray shaqo la'aantu waxay gaartay 14%. dhalinyarada wadankii ay isaga carareen wadankuna wuxuu ahaa wadan yar oo aan u adkeysan karin dhaqaale xumada inta waxa uu dheerayd kheyraad far badan ma lahayn balse waxaa dhacday 30 sano gudaheed inay dhacdo mucjisadii loo bixiyay The Celtic Tiger xilliga isaga Ireland waxa ay xoog saareen saddex qodob koowaad waxa ay hoos u dhigeen canshuuraha la saaro maalgashiga dibadda waxa ay kale oo xoog saareen waxbarashada sidoo kale waxay ka faa'iideysteen kamid ahaanshahooda midowga Yurub maxaan ka baran karnaa Soomaaliya ahaan marka la fiiriyo fursadaha iyo awoodaha istiraatiijiyadeed aan leenahay waxaan leenahay badda ugu dheer ee Geeska Afrika badda dheer oo aan haysano waxa ay noo sahlaysaa inaan noqono economical hub ama saldhigga dhaqaalaha ee Afrika labo maadaama aanu leenahay awood dhalinyaro oo aad u fara badan oo waqtiga hadda la joogo lagu qiyaaso in 70% dhalinyaro uu yahay bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa awood loo leeyahay in laga faa'iideysto waxbarashadu wax sahlan maaha innaga oo xoojina institutionada waxbarasho sida jaamacadaha iyo goobaha tababarada ee farsamada gacanta waxa ay naga saacideysaa in aan kor u qaadno 2 jibaarna 3 jibaarna 10 jibaarna 100 jibaarna dhaqaalaheena arinta iyada Ireland ku dhacday kuma imaan habeen iyo maalin waxa uu isbedelkaas socday 10 sano waxaana uu hirgalay 20 sano gudahood laga soo bilaabo 1990 ilaa 2000 Soomaaliya 30 sano ilaa 34 sano ay ku jirtaa hoos u dhac dhaqaale si aanu taa uga faa'iideysano waxa u baahannahay aqoon-yahankeena in dheergaradkeena in ay la yimaadaan aragtiyo lagu badbaadinayo dalka aqoon-yahanka Soomaaliya waxyaabaha haysta waxa kamid ah danahooda shakhsiga ah ay xoog saaraan arinta iyada ah waxa ay leedahay cawaaqib xumo waayo qofka aqoon-yahanka ah kaalintiisu way ka sareysaa in uu u shaqeysto naftiisa oo kaliya aqoon-yahanka waxa looga baahan yahay in uu lahaado aragti qaran in uu lahaado aragti hogaamineed inuu ahaado sidii Nabi Yuusuf yiri ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim dhamaanteen hadii aan u jahaysano inaan aqoonteena aan ugu helino bulshadeena waxaan awood u yeelanaynaa in aan mucjisooyin taariikhda aan la hore looga arag aan ka hirgelino waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah oo bulshooyin kale aysan lahayn in aan leenahay awood qurba joog oo aad u xoog badan Soomaaliya goboladeeda oo dhan waxa jira qurba joog dhaqaale aan inaba caadi ahayn wadanka soo galiya dhaqaalaha isaga ah oo lagu caawiyo qoysaska Soomaaliyeed ee wadanka ku nool waxa loo bedeli karaa fursado maalgashi sida ogsoonahay dad fara badan oo ganacsato ah ama hantiilayaal ah qurba joog Soomaaliyeed ah ayaa waxay dhaqaale fara badan galiyaan wadamada jaarka sida Kenya, Zambia, Tanzania, Uganda ilaa South Africa dhaqaalahaas oo loo sameeyo qorshe wadanka lagu soo celinayo waxay abuuraysaa in isbedelka horumarineed ee wadankeenu uu noqdo mid 100 jibaar ah oo aan horey loo arag waxa soo dhan waxa hagi kara aragti ku dhisan aqoon iyo siyaasad iskaashatay oo la timid hal abuur lagu badbaadiyo wadankeena